السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. bahda ku xidhan barteenan youtube-ka waxaan jeclaystay inaan idin soo gudbiyo buug la magac baxay Harkii Madooba. buuggaas oo qoray nin Masri ah oo la yiraahdo Najiib al-Kilaani, waxaana dhabtii wax lagu farxo ah in uu Soomaali u turjumay qoraaga Soomaaliyeed ee Aadan Xasan Aadan. runtii buuggan waxa uu ka hadlayaa qiso dhacday qarnigii 20aad, waxaanay ka dhacday dhulka Xabashida ee hadda loo yaqaan Itoobiya, laga bilaabo waqtigii Menelik ilaa dhicitaankii Hayle Selassie. halkaas oo ay sheekadu ku dhamaatay, waana qiso runtii qof walba muslima anfacaysa, ha ahaado mid raba inuu noqdo hogaamiye isbedel wacan ummadana u horseeda guul. waana dhacdo laga dheehan karo cadaawada diinta islaamka lagu hayay iyo nacaybka loo qabay islaamka, la iskuna dayay in la tirtiro oo dhulka Xabashida laga waayo muslim ka soo harana lagu qasbo inuu kiristaamobo. masaajidada oo dhan la gubay, dhulalka muslimiinta la boobay. waxaanan kugula talin lahaa intaad ku guda jirto qisadan inaad ku arki doonto wax badan oo ku niyad jabiya iyo wax badan oo ku farxad geliya, balse inta ku niyad jabinaysa ka qaada tusaale si aad timaadadeeda uga faa'iidayso khibrad. waxba yaanan hadalka kugu daaline, waxaad sugtaaba waa buuggan oon isku dayi doono inaan maalin walba xalqad idin soo gudbiyo haddii uu Alla idmo. iminkana waxaan isku dayi doonaa inaan idinla wadaago qaybtii koowaad, balse ka hor intaan idinla wadaagin aan idin sheego magacyada iyo dadka ku dhex jira sheekada iyo meelaha ay ka soo jeedaan si aanad fahankooda ugu wareerin. Ilyaasu, boqorka Xabashida laga bilaabo 1913 oo dhalinyaro ahaa. Mikaa'il Ilyaasu aabihii, muslim kiristaamoobay, gudoomiyaha gobolka Wallo. Shu'aragaash, Mikaa'il xaaskiisa, Ilyaasuna hooyadiis, waana gabadhii uu dhalay boqorkii Xabashida ee Menelik. Maalfaan, Ilyaasu walaashiis weeyaan. Sawdhiitu, Ilyaasu habaryartiis, muddo yarna loo dhiibay cariga Xabashida. Guugsa, sayga Sawdhiitu, waana gudoomiye gobol. Raastafare, sayga Maalfaan oo gobolna gudoomiye ka ahaa, waxaa loo magacaabay boqorka Sawdhiitu kadib. Miitaawus, ninka kiniisadda Xabasho u sareeyay xilligii Ilyaasu. haddaba dadka kale ee aad ku maqli doonto sheekadan waxaa ka mid ah xaaskii Ilyaasu ee hore, xaaskii Ilyaasu ee labaad, cunto kariyihii Tafarre, shaqaalaha reer boqor iyo kuwa kale. Maalfaan, sidaas ayay qoraalka Carabiga ah ugu soo aroortay. waxaase taariikh ahaan sugan inuu magaceedu ahaa Manan. wuxuu yidhi wiilkii yaraa ee Ilyaasu isaga oo aad wax u suluugsan oo quursi ku jiro, aabbo anigu arrimahan u dul qaadan kari maayo, allaylehe maxaan nacabahay nimankaas baadariyaasha ah. waxay weligood ka sheekeeyeen Ilaahay iyo awooddiisa ballaadhan. waxay ku celceliyeen Nebi Ciise iyo siduu garbaha ugu ritay gafafka dembiyada aadamaha si uu saamaxaad iyo dhaafid Ilaahay ugaga helo. alla maxaan aabbo nacay wejiyadooda indhasarcaadka ah, iyaga iyo indhahooda uu shar ka da'ayo ayay noogu warramaan naxariista Ilaahay. waxay nafta iskaga qaadaan oo ay ku xabeebsadaan toosnaanta iyo akhlaaqda wanaagsan, iyadoo uu afkooga ka urayo khamradu. kama daalaan ku celcelinta ereyada walaaltinimada, isa saamaxaadda iyo barakada Ilaahay. weligoodna waxay ku dhex jiri dembiyo madmadow, sakhraannimo iyo isjiidjiidaso dhexdooda ah. fukac ayuu kor u yidhi boqorkii yaraa ee Ilyaasu, isaga oo wejigiisii casaamadoobaaday, indhihiisiina laga dareemaya cadho. markaasi kulul u yidhi, may anigu Miitaawus la fadhiisan maayo. xasuusnowna Miitaawus waxa weeyaan boqorkii baadariyaasha kiristanka. aabbihii Mikaa'il oo u digaya ayaa yidhi, inankaygii qaaliga ahaayow Ilyaasow, ha hilmaamin inaad tahay boqorkii Xabashida iyo imbaraatoorkeygii weynaa. waxaad kaloo ogaataa inuu Miitaawus yahay qayskii Xabashida oo dhan, iyo in awood ballaadhan uu ku leeyahay dalka afartiisa daamood, oo uu si asluub leh u hadlo. wuxuu lahaa, Ilaaha sarreeya sharaf oo dhan iska leh, dhulkiisana nabadi ha goodho, dadkana barwaaqada ha saamayso. Ilyaasoo keligii hoos isugu yidhi, nabadgelyo jacayl Ilaahaygow maxay hoogeen dadka erayadan macaan ugu dhagaya wagar. wallaahi waa isla erayadii awowgay Menelik ay ku waali jireen. alla maxay maskaxdiisa been ku tuqeen oo maxay nacayb iyo xumaan dhaamiyeen. muxuu isna kolkaa ciidamo u qaatay bari waqooyi iyo koonfur
oo uu gowracay dad muslim ah oo aan waxba galabsan, imisuu masaajid burburiyey oo uu kiniisad ka taagay, imisuu tuulooyin muslimiin degan tahay dadkii ku soo gubay, sheekhyadiina dhegta dhiigga u daray oo uu xoolihii iyo hantidii la wareegay, imisuu dad masaakiin ahaa dhulkoogii intuu ceedhiyey dabadeed ugu deeqay baadariyaasha kiristanka faafiya. wuxuu sidaas u yeelay Ilaahay raaligelintiisa ee uu qoysku sheegayey iyo jacaylkiibaa kuwaas ahaa. markaasaa dawanka la garaacayey. kiniisadu farxad darteed bay dadka iskugu yeedhi jirtay. sidaas bay ahayd qayskaygii weynaayow. markaasaad ammaanta Ilaahay kor u qaadaysay oo aad heesaha guusha tumaysay. kolkaas ayay dhiig cabbayaashii ku dul geeraarayeen meydkii masaakiinta ay ku durduriyeen. Ilaaha sarreeya sharaf oo dhan iska leh, dhulkiisana nabadi ha ahaato, dadkana barwaaqadu ha saamayso. markaas ayay barkad Ilaahay ku dul hoobmanaysaa awoogay Minilik. mar dambe ayuu Ilyaas ku baraarugay qayskii oo u dhawaaqay, boqorkaygii miyaad maqlayn? waxaa Ilyaasuu ku soo dhacday qandhuuf inuu ku tufo ama la diriro si uu gurigaba uga baxo, laakiin wuxuu dareemay gacantii aabbihii oo si naxariis leh garbaha uga taataabanaysa. kolkaasuu gasay oo gartay halkuu joogay iyo waxa looga baahnaa. markay halkaas oo kale talo marayso, isaga oo si hoose u hadlaya ayuu yidhi, ha layga raali noqdo qaysyahow, maamuusta mudani, daal iyo madax xanuun ayaan la tiicayaa oo soo jeed baa xalay nafta ila qaybsaday ee ii fadhiiso. qayskii ayaa intuu si iska yeelyeel ah u muusooday yidhi, anigu dee waan idin aqaan, wiilkii boqor Miniligow. Ilyaasuu ayaa kolkuu weedhaa maqlay naxdin wadnuhu gariiray. maxaad ula jeedaa aabbihii Ilaah xumaanta ka meedhow? waxaad tihiin niman u abuuran dagaal iyo duulimaad, oo haddaad shaqada daysaanba soo jeed iyo welwel baa idiin hubaal ah. waxaan uga socdaa dowladihii yaryaraa ee muslimka ahaa ee jaarkeenna, qaar baa madaxa kor u soo qaaday waayadan. qabaa'ilka cawaanka ah ee koonfurtana qaar baa islaamay baa la leeyahay. markaas buu qayskii jeebkiisa ka soo saaray waraaqo badan oo isku duuban. xabbaar intuu u rogrogayay ayuu yidhi, waxaan kuu sidaa tirakoob buuxa oo ku saabsan masaajidada ay laga maarmaanka tahay in la burburiyo, madarasado iyo malcaamado qur-aanka iyo af carabiga lagu dhigo oo iyana la tirtiro ay tahay. waxaan kuu sidaa magacyada culimmada iyo ragga ka dambeeya halista intaa leeg. golaha sare ee kiniisadu waxa uu go'aamiyey in dib loo soo cusboonaysiiyo weeraradii dadka lagu edbin jiray. adiguna waa inaad intaa dib u bilowdaa. dagaalkii heeganka ahaa ee awowgaa ku qaaday waa in aadan hubka ka dhigin jeer ay niyadda ka saaraan wax yididiilo iyo rajo ah amardiidayaasha xunxun ee muslimiinta ah. saaxiibadeen Ingiriis, Talyaani iyo Faransiis ahaana waa diyaar. waxaan hub iyo waayo aragnimo u baahanno way ina siinayaan. dee waa rag diinta ina walaalaysaye. dhidid ayaa ka soo booday dhabannadii Ilyaasuu, isagoo cabburinaya dareenkiisa kacsan. kolkaas buu yidhi, miyaanay jirin jid kale oo aan dagaal ahayni? waxaan u soo joognay oo aan barannay inaanay seef maahe si kale ku hoggaansanayn. madax adeegooda iyo diinjacaylkooga ayaa ah mid aan la arag wax la mid ah. waxaan ku hordhigay waa xalka ay ku ibabeeshay taladii baadariyaasha iyo saaxiibadeenna reer galbeedku, waana isla habkii uu u dhaqmi jiray awowgaa sharaftii lahaa ee Minilik. Ilyaasuu oo aan dareemin ayaa hoos u yara guuxay oo yidhi, dhulka Ilaahay nabadu ha gaadho. baadarigii ayaa intuu si edeb leh u qoslay yidhi, nabadgelyo jiri mayso intay amardiidayaalkaas xunxun ee muslimiinta ahay Ilaahay u soo laamayaan. Ilyaasuu ayaa mar kale intuu fikirka ka fogaaday ku hadaaqay, dadka barwaaqadu ha saamayso. baadarigiina wuxuu ka daba yidhi, barwaaqo jiri mayso innagoo aynaan ka guulaysan tuugtaa xunxun ee munaafiqiinta ah. kolkaa uunbay kiniisadu dawankeega si fiican u garaacay. kolkaas uunbaana heesaha iyo digriga laga qaaday buuraha iyo bannaanada iyo kaymahaba. kolkaasay xabasha noqon doontaa dhulkii Ilaahay, dhulkii ciisihii ina badbaadinayey. madaxa ayuu Ilyaasi gundhiyey, wuxuuna yidhi, waa hagaag, wax kale oo loo baahan yahay ma jira. baadarigii warqadihii gacantiisa ku jiray inta uu rogrogay ayuu yidhi, guddida sare ee kiniisadu wuxuu aad u baahan yahay xoolo badan. maxaa dhacay oo ay ku kala falayaan? ayuu Ilyaasu yidhi,
waxay u baahan yihiin xoolo si ay nafahooga ugu suubiyaan oo diinta rabbina u faafiyaan iyo si kiniisadda cusub loo dhiso. laakiin kaydka hantida dowladda, dagaalka iyo kiniisadda kuma wada filna, ayaa uu yidhi Ilyaasu. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. intaas ayaanu ku soo gebagabayn doonaa xalqaddii aan idinku tala galay inaan idiin soo gudbiyo. waxaad sugtaanba waa xalqadaha kale.